maadaama aragteen soo noqoshadii iyo soo dhaweyntii madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi, horta sida la ogyahaybo intii dambaabto waxaan leenahay dembigiina Allah cafiyo, intii dambaaminna oo dee xaqa ku hadashana waxaan leenahay Ilaahay nagu toosiyay dhageheena inuu maqlaan xaqa ku hadasheen, intii dambaabtana Ilaahay dembigooda ha cafiyo. waa qodobka koowaad. qodobka labaad waxaan leenahay horta Soomaaliya iyo Somaliland ilaa Hargeysa iyo Muqdisho maxaa kala haysto? Hargeysa iyo Muqdisho waxa kala haysto ani ahaanteeda aqligeyga kamilka ah ee buuxo wuxuu i tusayaa in ay ka timaaday dhaawac hore aan bogsan inay tahay aaminsanahay. Muusena waa maqasheen hadalkiisa, Xasan Sheekhna maxaa la dhahaa waa maqasheen hadalkiisa. Marka labadooda la dhageysto waxa waaye boog hore oo aan bogsan, oo aan la dhadhayn, oo aan maxaa la dhahaa la saxin aa meesha ku jirto. labada nin horta walaalaha wax islama diidano, labada imaan doontana wax islama diideyso, labada dhala doontana wax islama diideyso. midigii waxaan nahay bidix oo la isku baaqo. marka waxaan leenahay ummadan waa in horta boogti ay faagaan. boogti la faagaa waxay qaadan kartaa 50 sano hadda ah, degdeg iyo bixin. Hargeysana duulaan kuma ahan Muqdisho, Muqdishona baarlamaanka joogo duulaan kuma ahan baarlamaanka Hargeysa joogo. Banooniga hoos ha loo dhigo. xalay dood badanaa baxaysay oo waa habeenadan dhan loo dhafraay. marka doodahaas oo dhan waxay ku dhammaan karaan mase lagu soo koobi karaa waa nin walba inuu boogti horta siduu ku dhayi lahaa falkeeda oo galo. falkuu galaayana ha ahaato fal faraciisa dambe wax u taraayo oo berita sidee boogta iyagana ku arkaan ay u bogsiin lahaayeen 50 sano soo socdo, 100 sano soo socto, iyo inta kaleeto iyo inta nool oo joogi doonto baarlamaanka Muqdisho iyo baarlamaanka Hargeysa. waxaa laga rabaa sidaas. haddaba maxay ka leedahay boogtan iyo maxay u socotaa boogtan? waa in la ogaadaa. boogtan waxay u socotaa meel aan la huri karin. meeshaan la huri karinna waxaa waaye adduunka qof walba taakaa loo suubiye. taakada annaga noola suubiye waxaa waaye waa Muqdisho iyo Hargeyso iyo dhammaan inta ku hareeraysan oo la isku dhaho shanta Soomaaliyeed. shanta Soomaaliyeed intaaba gaarinba waxaaba isku haysanaaba federaalki aan isku haysanaa. marka waxaa la rabaa odayaasha, dhalinyarada iyo kuwa imaan doonaba inay ku fikiraan boogtaas siday u dhayi lahaayeen. haddaad joogto Hargeyso oo dhul Somaliland leedahay, iyo haddaad joogto dhul Soomaali ee leedahay oo shanta Soomaaliyeed meel walba oo yahay Muqdisho ilaa iyo intii Soomaali arliga ku nool. taa haddaa kasoo gudubno waxaa la rabaa walaal gacmo isku duub ay wax ku gooyaan, gacmo wada jir ay wax ku gooyaan, wada jir hala noqdo, hala
qalbi saafinaado, halaisku colaada hal meel ha looga soo jeesto, cadowga hal meel ha looga soo jeesto. Waxaan idin leeyahay nolosha waxay u baahan tahay sabir. Ha laysku sabro madaxdii